kiraha I swear in the name of Allah waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay Allah loves you Ilaahay waa ku jecel yahay Allah loves you Ilaahay waa ku jecel yahay Allah loves you Ilaahay waa ku jecel yahay I have been here a while waqti badan aan meeshaan taagnaa knocking your door albaabkaagan gargaraacay albaabkana saas uma garaacan wallahi Ilaahay waa ku jecel yahay yarka carabkiisa afkiisa ka soo baxday Ilaahay waa ku jecel yahay Ilaahay waa ku jecel yahay waa gaal naagti markaas waxay dhahday markaas okay waxay dhahday okay angel saas u hadlaan gaalada qaarkood ilmaha yar yarka oo qurux badan markay arkaan oo dhoola cadeena wiilku dhoola cadeena aabiisa ku tababare dhoola cadee oo fi tabassumika liwajhi akhiika sadaqa marka qofku dhoola cadee isagoo sadaqa bixinayo lamid tahay qof walba ka hor yimaado u dhoola cadeeyo dhahay marka dhoola cadeena wiil yar oo qurux badan oo dhoola cadeenayo aha markaas waxay dhahday okay angel so what you want tell me maxarta markaas wuxuu dhahay I have a message for you message ayaan ku hayaa this is the last pamphlet waa qoraalkii ugu dambeeyay waxaa ku qoran the final message waxaa ku risaaladii ugu dambeysay to you oo adiga kugu socoto haddaa akhriso waxaad noqonaysaa qof qalbigiisa degan oo raaxo dareema naagtan waayeelka dhibaa haystay warqadii qaadatay waxay dhahday thank you wuxuu dhahay will you promise warqadan ma ii ballan qaadaysaa hadda iga qaado wax kale ha samaynin fariiso read until you complete ma akhrinaysaa ma ii ballan qaadaysaa inaad akhriso ilaa ilmo yar hadday saas ku dhahaan adoo qof waayeel ah ilmahaas yar waa iska dhegaysanaysaa maamada ilmihii hadalkii cunugaasi ku hadlayaa deeqay waayay dhahday I promise waa ballanqaadaya albaabkii xirtay wiilkii uu baxay maamadii qolkii gashay warqaddii akhrisay maxaa dhacay wiilkii soo socdaa la gaaray aabbaha waa idin sheegay masaajidka khudbaynayay jimcay ahayd aabbihii jimcaha khudbada markuu dhameeyey mar kasto masaajidka waa sida masaajidka oo kale jimciyaasha markaan khudbada dhameeyo dad gaalaa yimaado oo fariista oo iska dhegaysta wadaduna saaran yahay markii khudbada aan dhameen waxaan dhahnaa yaa su'aalo qabo hadday hal ay yihiin oo kale xafiiska soo galaan dhahnaa hadday koox yihiin marka aabbihii markuu dhameeyey khudbada wuxuu dhahay wax su'aalo qabo ma jiraa haween oo waayeel oo caddaana gacanta taagto waxay dhahday aniga markaasaa wuxuu yidhi goohay su-aasha weydiiyey waxay dhahday su'aal ma aha sheekaan rabaa inaan ka sheekeeyo oo maalmo ka hor igu dhacday markaasaa wuxuu yidhi animaa ii sheegaysa mise anagoo dhan waxaan rabaa dadkao dhan inay maqlaan sheeko yaa badan waay markaasaa waxay tidhi sheekadaas waxay khusaysaa wiilkaas dhinacaaga fadhiyo iyo aniga wiilku wuu naxay markaasaa wuxuu yidhi orod sheekada noo sheeg waaya noo wad waxay tidhi maalin baraf xun da'ayo oo dabeel xoog badan da'ayso ayay ahaydee dhahday waxay dhahday aniga 4 bilood ka hor uu ninkayga dhintay ninkayga wuxuu ahaa nin aan aad u jeclahay waa gaal uu ahaa gaalnimo ku dhintay iyadana gaalay ahayd waxay dhahday ninkayga iyo aniga waxaan ahayn saaxiib saas isugu dhow xitaa anagoo waayeel noqonay markuu dhintay gacantayda midig ama qayb jirkay ka mid aan waayey markaasi kadib waa waalan gaaray lacag badanaa haystaa nolol fiicna haddana noloshoo dhan ma seexda habeenkii ninkii aan soo xasuusanayaa dhib habeenkii maaragtay markaan seexan waayey ninkii aan ka maarmi waayey waxaan go-aan ku gaaray maadaama uu dhintay inaan ka daba dhinto marka maaragtay xariggii aan diyaarsaday xargaha laysku deldelo kursigii oo dheeraa oo marka la tuuro oo qofka hang uu noqonayo oo xarigga dilayay aan soo qaatay waxaan go-aan ku gaaray inaan isdilo waxay dhahday maalin maalmaha ka mida wixii dhan aan diyaarsaday kor aan ku xirtay xariggii aan soo lalmayey oo kursiga meesha aan saartay kursigaan koray dhahday kursiga anoo saarsan xariggaan qoorta gashtay dhahday waa dhab aan ku siiyey marka kursiga tuuristis kaliya ee harsaneed waa daqiiqadda ugu dambaysa nolosheeda aan waxaan maqlay dhahday albaab oo la garaacayo gow albaabka marka la garaacayay markaasaa waxaan dhahay who cares maxaa iga galay waxa garaacayo laakiin albaabkii waa kala joojin waaya garaacistii marka hore tartiibay ahayd waxaa bilaabatay inuu xoogsado qofka albaabka garaacayay markii dambe haddana markuu xoogsaday anoo raba inaan go-aan gaaro who cares aan dhahay maxaa iga galay waa dhammaystay anoo dhahayo waxaan arkay qofkii albaabka garaacayo oo ka sii daro wuxuu u garaacaya saan caadi ahayn bow markaasa waxaan dhahay there is something going on waxaan go-aan ku gaaray inaan bahalka iska furo xariggaa iska furay waa soo degtay waa soo orday albaabkaan furay there was a little angel waxay dhahday malag baa albaabka taagan wiilka yaray ula jeeda
a young boy about 11 12 year old wiil yar 12 jir u eg smiling beautiful face qurux badan smiling macnaheedu waxa waaye dhoola cadeynayo markaasaa wuxuu leeyahay Allah loves you God loves you I swear in the name of Allah God loves you ilaah baan ku dhaarnaa ilaah baa ku jecel ilaah baa ku jecel ilaahan ku dhaaranaya wuu ku celcelinaa wiilkii markaasuu leeyahay marka risaalan ku haya messagean ku wadaa noloshaada dhan way degay haddaa akhrisato marka anna kurba ay hayso waa walsanahay stressful aan ahay waa waalan rabaa waxa marka wiilkan yar oo waxaan uu sheegay maxay tahay markaasaa wuxuu yiri ii balan qaadaysa ana akhrinaysid waa ku nasanaysaa waa ku raaxaysanaysaa markaas kadib waa ka soo qaaday waxa ku taalo markaasi quraanka the words of Allah ilaahay hadaladiisa waxa ku taalo alaa bi dhikri illaahi tatma'innu alqulub ilaahay hadii xusitaankiisa ilaahay oo la xuso qofka qalbigiisa ku xasila markaasi wixii waa jeclaysay tiri inaan akhriyaan bilaabay page ka page pamphlets ka inaan akhriyaan bilaabay ilaa aan ka dhamay markaan ka dhameeyay qalbigayga dhan waxaan dareemay raaxo waxaan dareemay message-ka meesha ku qoran inuu run yahay waxaan dareemay diinta islaamka inay tahay the final message waxaan dareemay in ilaahay aniga uu ila hadlayay waxaan dareemay wiilka hadalkiisa inuu run tahay oo ilaahay uu jecel yahay waa soo istaagay xarigiyaan furay ee dhahday kursigiyaan tuuray nooc kale aan noqday warqadiyaan fiiriyay hadduu adress ku yaalo waxaan ka helay adresska centerkan ay dhahday centerkan imid markaas kadib tawxiidkay qabsatay way islaamtay ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين إلهي سبحانه وتعالى وحليه يا كشقة وناكسن يا كهذا وناكسن روح دتك ويرا دين إسلامك أو ده مسلمين تا أيان كمدها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته